ugaas maxamed jamac baruur oo kamid ah dhaqanka Soomaaliyeed ayaa hambalyo diiran u diray shucuubta muslimiinta gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay dunida dacaladeeda kaga ciidayaan munaasabada barakeysan Ciidul Fitriga awgeed. Ugaasku uu ka hadlayay munaasabadan khayrka badan ee qiimaha badan ayaan ummadda muslimiinta ummadda Soomaaliyeed ugu duceeyay nabad barwaaqo midnimo isagoo ku booriyay in ay ka faa'iideystaan fursadaha khayrka badan si ay isu cafiyaan iskuna garab istaagaan horumarka iyo walaaltinimada. sidoo kale ugaas maxamed jamac baruur wuxuu si gaar ah uga hadlay colaadda dabada dheeraatay u dhaxaysa maamulada Khartoum iyo Somaliland isagoo labada dhinac ugu baaqay in ay miiska wada hadalka isugu yimaadaan oo u hoggaansamaan nabadda xasiloonida. Ugaaska ayaana carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in wax waliba lagu dhameeyo saafgarad wada hadal maadaama colaadda aysan wax faa'iido ah u lahayn shacabka Soomaaliyeed ee labada dhinac ku nool. Ugaaska ayaa sidoo kalena xusay doorka odayaasha dhaqanka, culimada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee nabadda lagu xoojinayo isagoo ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan dadaalada lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada ishaya. waxaana ugu dambeyntii ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan midnimada horumarka nabadda si loo gaaro mustaqbal ifaya oo ay ku diirsadaan jiilasha soo socda. وكان ugaasku arrimahaasi ka hadlaya. صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد waxaan u hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba. dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan. ciidan ciideeda Allah na gaarsiiyo. soonkii 29 bari iyo 30 la soomayna ilaahay qeyrkiisa Allah siiyo ummadda Soomaaliyeed oo muslimiinta ah. waxaan leeyahay dadka qurbaha joogo Mareykanka, Asia, Yurub, Australia iyo Afrikaba farxad ku wada ciida. farxad ku wada ciida. ilaahay waxaan ka barinay subxaanahu wa tacaala haddaan ugaas maxamed ugaas jamac baruur aan ahay roob khayr qabo roobka nagu soo socdo roob aaran ah Soomaalida Allah siiyo xoolahana ku doogsadaan dadkana ku qaboobaan wabiyadana ilaahay aaran Allah ugu dhigo subxaanahu wa tacaala. dadka waxaa roon ummadda